وانسية وان سلا سبرين قعنتي سان أصار ولا دروغري يعني وحاروا أنت سينا مشغولية وحاروا إنها تصي هويدا عنقان إنه وحير وباهية هاي إنه مشغولية حلقة أبيه إنه فريق دير الأوجو هبين كران last minute أقول بسوق لاي هويدا exhausted واي يعني overloaded واي ما أنت أنا عنقي تبع عرفيسي ما نصمم أبيه at the same time وقصي قيلنايو maalintii xanuunsada aga sii daran tahay oo dhahaybo si ku xanuunsan kartaa adiga hooyada ma sha Allah tabaaraka Allah very active hooyooyinka they do multitasking kan sameeyaan yani ina adi fiirisid waay not ina adi iaysid not adi ina itikortid not adi ina ideedid hooyadii inaga daayaqa dadka salamo martin karo waxa kugu dhalan kara adiga depression kugu dhalan karo xanuun badan ku keeni kartaa as a parent xanuun badan ka khadna marka hooyooyinka iyo abooyinka ku xiran tahay inay accept garayaan kuuga hore inay dhahaan alxamdulillah so badan hooyooyinka iyo abooyinka markii ayagu ku adag inay accept garayaan markay san u accept garayaan bulshada ku soo shamuumaysa bulshada ay meel ay ka istaagaan ay la yihiin ana ku haynayo way adag tahay 90% way adag tahay qof mantahay ilaahay si qalbi ayaa laga yaabo inuu ku dhaho abaayo wax naso hatta xaafadeeda tag ana la sii joogay caruurtaada hooyadaas waxaan u diraa waxa tahay hooyo strong ah hooyo qalbi wanaagsan tahay qof maanta ku gaartay aysan jirin ilaahay garabkaaga ha galo gabdhaha horta badi waa loo cabsada in la kufsado waxaad arkay dadka Soomaalida ajiib waay qafa maaragtay qafba maskaxdiisa ka yaad maart ku mashquula maama ana waxaan ka warqabaa cunugeeda meel ku xirtay maaha waxay dhahay banaanka dankan ana maadaama aan joogin gabar waay banaanka dankan waa liiga farxmayna emotions badan u qaba qofkaas therapy u baahan yahay laftinkiisa counseling u baahan yahay masalana xunug baahi qaba hay waxa waaye aniga macallinka laftinkeyga ayaaba maaragtay culays badan dareemaya qof waxaad arkay dhagajiga oo laakiin dhagaha ku wata wax maaragtay samacada kor u qaada ku wata qofka camal waxa laga yaabaa inaad maaragtay faruuyahaada lip reading wax la dhaho uu sameeyo saan camal aan leeyahay soo hadhay hello my name is then finger spelling qori markaas okay qonsi father waa adabtaan dhahda waxa la ogaanaa inaad father ay tahay saan hadaa dhahdana father inay tahay waa ogaanaa cunuga dagaalka أنا لفتن كيجا أنا دن كان ماركت برايا دقولود برايا قابلي تكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا قيب كله وحيسله ومهدي شو ما أنت وحان ما كنت دهينا مهدي شو اللغة الصومالية سيدا أركيسين إنجليز ما نقول برتين لكن ما أنت وعي قليل آدي مهمة يعني بالشدة ودنا سيدا أقنا هاي صومالي دا دخنهان أما عادهان عرورتان باهيدا جارك قو أما باهيدا نوع رتان نقطة disability أما differently عندنا disabilities أعرف يعني ما عرورت إن نقارنا أيام مارتي عادي سنة أما مارتي دخن ولادهم حلاقي يوا عدة كقولة إنه عنقير وجوه أو مارتي باهيدا جارت قبا لكن لا تكوري أما قولي الوحرة أو بنانك مارتي وسو بحينين أما بلشدة وسو رحقلين أما تعلين تأي مارتي مقابك الوعياري ملو بين مارتي لقى قريب أيضا مارتي عنقاس وحق أوليها إن وحلا برسيدة تقفك كله أما مارتي بلشدة صور حقله سيدي مارتي عيالك كله مارتي لولا دقمين اللقمة لكن حكومة ليس حق سومالي كلا فيري قدميها كله إن نقول دنيا أمالي أما نقول في عنين حق مارتي لا دقنك إن عيالك أما ضدك نقول بين هذا عندنا إن أو باهيدا جوني دقمة إن أنت كورنا أو مارتي بالمرقارن عين أما ودقن أما وأفلجاد أما وجيز أما سومالي هرتم عادي يستقفكي مارتي نسخانكي مارتي أوقف وبلها وخلقي أما مارتي باهيدا جوني إن مارتي مجا الله وديكو هدو دقي لا إن لا دقي لدها هدو مارتي لوج لا إن لوج لدها هدو إلا إلي لدها وحر مارت أرين مارت أدلو عديست ما أنت نصيب ويالني هواي جيسية أو صوماليات أو مارتي قبته ويل أدي قيمة بدن أو بهيدا جوني الخبر هواي ده صوب بحدي أو مارتي
una sheegaysa bulshada ina maaragtay wacyigelin badan usoo biso ina caruurta baahida goonida qabo inay guryaha lagu qarinin oo lasoo bixiyo program aad iyo aad maaragtay ama campaign ama wacyigelin oo maaragtay u macdartay don't hide me oo marka la turjumo noqonaysa ha i qarinin ayay maaragtay aad iyo aad maaragtay ay oga shaqaysaa oona ololeysa ina maaragtay caruurta baahida goonida qaba in la takoorin oona la qarinin najma aad iyo aad umahadsan tahay kulsoona dhagow mahdi show waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahdi show waxyaalaha aan qabana waxaa ka mid ah wacyigelinta bulshada soomaaliyeed waxyaalaha maaragtay bulshada ay iska indhatirayaan in anaga usoo shaacino oo maaragtay wacyigelino oona maaragtay aan tacliin aan siino bal bilowga najma waa tuma in brief bal taariikhdaada najma waa hooyo soomaaliyeed oo maanta u tagan dadka baahida gaarka leh waxaan ku dhashay muqdisho waxaana ku barbaaray magaalada london haddana waxaan ku suganahay mombasa raaxa alxamdulilah waxyaabo badan ayaa bartay journey journey-gaygana najma waa qaftaas masha allah bal man programkan maaragtay oo aad u qiimo u leh aniga nafteyda aad u taageero oona maaragtay aad ugu faraxna oo aan u malaynaysa ina maaragtay bulshada ay indhaha ku kala qaadeen oo intaasoo jeerna aad qabaseen forums oo wacyigeline oo don't hide me ha i qarinin bal magacaas don't hide me intuu ka imaaday maxaana kugu sabab inaad maaragtay la soo baxda awareness ama maaragtay wacyigelintaas oo don't hide me maxaa kugu walaahi horta magacahaan is a powerful name waxa igu dhaliyana waxa waaye Somali community-geena aad ayay u qarisaa ilmaha baahida gaarka leh because waxay isdhahaan waa lagu wacaynaa ama waxyaabo badan ayay u qariyaan markaan imaaday magaaladan Kenya ayaa waxaan sameynay small group oo wiilal walaalo ah dhalinyaro iyo gabdhaha isku jiro waxaan la soo baxnay magacaan don't hide me markaan u sheegay especially aniga qaas ahaan dhibaatada Somali community ee ku qabto ilmaha baahida gaarka leh waxyaabo badan aan saameeyo ma dhihi karno ma rabno inaan banaanka soo baxno waxa ka mid noqon kara xataa waalidiinta oo accept gareynayaan oo yacni dhahayaan hadda diyaaraan ahay inaan soo baxno waalidiinta badanaa ayagana way baqaano waxay dhahayaan intii lagu caynaayo ayaa badan maxaa u soo bixinaynaa cunugan markaa fariisanay aniga iyo tiimkayga don't hide me waxaan soo saarnay magacaan hay qarinin haddana maasha allah tabaaraka allah meel sare ayuu sii marayaa kana iguma horeynin mid kale ayaa soo asaasay oo ahaa before ilaa haddana ka shaqeynaya magaalada london especially UK dhexdeeda asigana let's make noise team la dhahaa waa the same ilmaha baahida gaarka leh marka laakiin Africa has more need than qurbaha ciyaalkeen waxyaabo badan ayay helayaan laakiin Africa haddaan ku dhaho ma aragtaa caruurta baahida gaarka leh ma aragtid so markan magaaladan Kenya aan soo degay especially Mombasa maadaama aan leeyahay cunug baahi gaar leh waxaan isku dayay inaan raadiyo ilmaha baahida gaarka leh soo ula ciyaaro soo waqti ula qaato anaga as a parent aan u sheekaysano aan wacyigelin always anaga wacyigelin aan bixin jiray past 8 years alxamdulillah so marka waan waaye iskuulo way jiraan yar ah but caruurti badana aawa in public places ma joogaan markaan raadi research aan sameeyay waxaan ogaaday ilmaha baahida gaarka leh in lagu keep gareeyo boarding schools kan waa another qaris waaye you know way kala waa u dhigan kartiin laakiin markay imaado ilmaheena baahida gaarka leh waa lagu qariyaa maamadaas markay waqtigii holiday-ga ah cunug way soo kaxaysana straight gurigiisa gelinay ma soo saaraysa banaanka so since Africa imaaday cunug baahi gaar leh ma ku arkin banaanka way adag tahay unless dadka qurbaha ka imaado fasax u imaado inaan ku arko laakiin cunug wadanka u dhashtay oo maanta maqaayo fadhiyo ama maanta dukaanka adeeganayo ama maanta masaajid ku jiro ma arkaysid so marka waxaan dhahay wacyigelin ayay u baahan tahay Kenya
وإلمها إن لا صوصارة إلمها وإلما عادي ما شاء الله تبارك الله it's just باهي قاري ليهين marka ina caruurta kala soo saaro aan kana qariyo ani dhib weyn aan u arkaa ani caruur kale waa leeyahay ma sha Allah tabaaraka Allah so always waxa fiican inaan maaragtay isla jaad qaasiisid iyalka community-gan ay ogaato ilmaha baahida gaarka la inay ka mid yihiin community-ga dad waaweyn markaa wareysatid ayaa waxay ku dhahayaan waxaas iska caadi waaye baahi gaar la anaga dhanaa wada qabna yes laakiin kan wuu kaa duuban yahay ma aha baahida gaar kale cunuga sanka la ama sani ama ilay ama afay Soomaali ku caan waa magacyo very strong ah ilmaha waa ilmaha qaba autism-ka down syndrome-ka CP-ga way kala baxaan marka waa ilmaha anaga qaabilsanahay markaas la fariisana as a group majority oo yani dadkii badanaa ka mid ahay groupka markaan u fisiray dhibaatadan aan face gareyno wallahi 90% groupkaas ku jiro ma in fahansaneen waxa laga wada down syndrome-ka autism-ka CP-ga yani waa wax looga baahan yahay wadanka haddana ma sha Allah tabaaraka Allah wiilasha walaalahayga ah gabdhaha aan isla wada shaqeyno campaign-kan meel sare ayaa gaarsiinay yani waxaana dareensanahay in aad ay bulshada ugu baahan tahay wacyigelinta bulshada caawinaad ay u baahan tahay bulshada qaarkood way rabaan inay soo baxaan laakiin way baqayaan waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo waxay u baahan yihiin support in la siiyo in la soo dhaweeyo maaragtay waxyaabo badan loo provide gareeyo dawladda waxyaabo badan ay ku soo dhaweysato ilmaha waxyaabo badan dee laakiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin aan jirto ilmahan baahi gaar la leeyihiin mahane wax kale ay qabaan malaha masha Allah هذا ما سنتي سيد ونكسنه نو فايس سؤال أنس مربع سويدية كل إدات كبدنا سويدينيان سوماليا بالشدة هي عرفت أقريان وحي أقريان أو dadka kale waxaa arkaysa markaad tagto meelaha public una jiro baahi ma arkaysa ama baahida gooni qabo oo laakiin la wado oo meesha la keenaya hadda sheegtay masaajida kuma arkaysid meelaha lagu ciyaaro kuma arkaysid hadda waxaa maqlay hadda Gaarso kale ama Wajir Mandera markaad tagto meelaha ciida gobolada ciida lagu tukaday iyo meelaha ciyaartu ku ciyaaraan waxaa dhahaysaa carruurta kulli baba unuga baahi gooni qabo ma jiro waa saa sheegaysan waa la qariyo waxyaalaha ku kalifaya Soomaalida inay carruurta qariyaan ama biliis waxay aaminsan yihiin maxaa weeye haddaad maybe had garanaysa wallahi horta as a walid ahaan koogoor waxay ku xiran tahay qofka inay accept garayso ee dhahda yes ilaaha ay siiyay ilaaha kuna micnaa ku shukrana cunugan waa ogahay ilmaha kale inuu ka duuban yahay so se ula tacaali karaa because hooyooyinkeena badana accepting-ka ugu adag aniga as a mother xataa hooyo ahaan way ugu adkeed anigoo yaraan dhalay wiilkayga marka cunuga fiirisid waxaas leedahay ma cunugan intee u dambeyn doonta aakhirkiisa miyaa luus gareyn doonaa miyuu kasoo kici doonaa su'aalo badan isweydiinaysa so hooyadaas naftirkeeda xanuun badan ay ka qaadaysaa by just looking after the child yani cunugaas ee korinaysa maaragtay korinkiisa ay ka fikirayso because hooyadii naftirkeeda su'aalo badan isweydiinaysa su'aalooyinkaas waxaa kugu dhalan kara adiga depression kugu dhalan karo xanuun badan ku keeni kartaa even though aan u jeedno ilaahay wuxuu noo siiyay inay tahay min cinda Allah ay tahay laakiin still as a parent xanuun badan aan ka qaadnaa marka hooyooyinka iyo aabooyinka ku xiran tahay inay accept garayaan kuuga hore inay dhahaan alxamdulillah soo yahan ku accept garayno waa kaxeenaynaa maanta masaajidka la tagayna waa kaxeenaynaa maanta suuqa la tagayna waa kaxeenaynaa maanta waa la soo iideysanaynaa laakiin hooyada markay saas banaanka iyo family-ga u soo baxaan bulshadii oo heblaayo cunugii xanuunsanaay wadatay heblaayki dareeraya maanta waxay keentay meesha masaajidka salaada ciida heblaayo iyo hebel cunugooda waa laga tukan waaye maanta dhan oo meesha ku qayqaylinaaye soo hooyadii adiga wixii dhan soo qaadatay familkii aabihii soo qaateen haddana community-gi ayaa bush gareynaya haddana hooyadii waxay noqonaysaa shutdown qaymaba saarayaba haska joogo gurigiisa ha يعني هو إذا هذا effect وين كسو جارايو يا أخي إنه ها إيدي كو حكتو كان ملا وضايو كو كلا لك حنا سو كانوا حالة ده يا كو يا بنانك جوجانا عينايا سو community جينا هرتا وحي إلهي كان هرتنا نكون معنا وكو شكر نواد هو إذا ما يجوز كريسنا توتل اللي هو إذا ما يجوز كريسنا هنا قال لكن إله أقول معي سو مرك وح هذا إلهي كون معي هذا هو صلاة تكتا
waa soontaa cimri xij waxba hadaa somaha everything dutigaaga islamic waygaa samaysaa maxaa u caynaysaa ummadda kale waa fahamteen soo badanaa hooyooyinka iyo aabooyinka markay ayaga ku adag inay accept gareeyaan markay san u accept gareeyaana bulshadii ku soo shamuumaysa bulshadii meelay ka istaagaan ay laayihiin so aniga asama waxaan leeyahay cunugaas maalintii la soo saaro walaalayaal u nasteexeeya hooyadaas u nasteexeeya birka maalin you never know ina adiga dhali doontid you know ama waa familkaaga ay haystaan ma fahamtay waxaa looga baahan yahay waalidka in la soo dhaweeyo waxaa laga yaabaa maamadaas 10 sano inay guri ku jirto ee dheer maanta yaqay kaxay cunugan salaada iid u kaxay cunuga xaflad hebel aa jirto badan maalintii kaxaysana reject laga soo saaray community waxa laga yaabaa your own familkaaga dadka adiga kula dhashteen saraandigaaga inayba ka bilaabaanba dadka community inta iska dhaaftidba soo walaalayaal ilaahay ka cabsada soo dhaweeyo imaheena ما شاء الله وفرين كل قفكي عقلي له أما قفكي إيمان له كل تعبانيسا فرنت أنا أقول بالشيء سمعت ما ملا ديرنا سيدا أدي إله وكو أبوري وكو كامل كاغا ديجي أدي نوكادي كيري سمعت أنا كاغا ديجي بس كا وقدر الله هو عروتا بعيدا جارت خو مركا أركين والدين برمسون فضل تاجر يعني التكور يعني العين marka fiirsana waxa dadka caayata dadku inuu caruurta yarna caruurtana yaryar oo dhalinyaro Soomaaliyeed kuwa yar mana yaryar wali maana barin tarbiyo akhlaaq waan arinta maxaa aad u arka wada ma dhaxal iskuul baa jira aan rabna keena manhaj oo al makarim al akhlaaq maana manhaj ku salaysan akhlaaqda bas maana dadka weyn oo marto la hadleed dariska maana xagga marti bulshada environmentka macallimiinta macnaha waxyaalo waxa jira anaga Soomaaliyahan qofna bari aan jirin sax oo aan iska baranay maartay through the hard way qad arkaysa qof Soomaaliyeed oo maybe lifta soo galaysa asoo orda arkaysa u qabanaysa boqolkiiba 99 mahadsan isku madaxay rahoy ama qof marmar qaar regaars banaan bas aan iska fuulna kursiga waxa uu kacaysaa qof waayeel ama xalaga ina 1 hour taagnaato markuu dagay hata kuma duceynay hata kuma dhahay so akhlaaq maartay waxyaalo maartay ka waxyaalo maartay binaadamada ku jirta dadka lagu fiican yahay jira Soomaaliyahan so badi caruurtaana yar wali maana barin qada aragto qof la kulanta ama qof baahida gooni qaba ama qof waayeel ama qof inaad hada fi dadka waal oo kale waxa lagu suubiyaa gablada wala dhagax tuura dadka yar ku yar caruurta yaran ka wada Allah badi because am waxa dadka caruurta baahida gooni qaba caynay waa caruur yar way dadka way niiday inaga leeyin cunug maxaa loo soo bixiyay laakiin amalahan kuma tusaan ficil ahaan laakiin waxa dhagax tuuraya dadka waalan oo maskaxdooda ay raxmusin ama caruurta caynaya waa caruurta yar oo aan dhalnay so maxaa fiican waalidda tahay inaad hada caruurta yar inaad tarbiya barto because meel lagu bara malaha runtii al akhlaaq ina caruurta dadka ixtiraamka iyo respectka iyo maaragtay dadka kala maaragtay inaad maaragtay caynin qof hada aragta kaalito macnaha inaad jidka goysiisa ama so marka badan waxa fiirsaa waa poor parenting anaga Soomaali ahaan maxaan raacna system oo awoogan soo hay ayeedan soo haysay aabahan anaga hadana sii wan aadan loo fiicnaa marka la katasi thank you waa maasan tahay ama please isi qofku waxa isi ku dhaatay please kuma dhahay ama qof waxa uu diray thank you kuma dhahay waa dad macnaha ummad kala aanay laakiin kulli waa waxaan fiirjiilkan soo kacay maxaan dareensanahay inaan maartay manhaj noocaas inaan barno oo maartay akhlaaqe aan ka soo gudubno sababta waan aragnay dhibaatada u weyn oo loo qarinaya ciyaalka baahida qaba waa bulshada waayo ayagii maartay yaa cunugii marka banaan keento cunugii baa laga yaabaa inaa heartbreak ama depression ka soo qaadayso صح kaas aad iyo aad u maasantay midda kale inaan noo yar faahfaahisa baahida goonida si u kala baxdo maybe dadka kala garaneyn because I believe ilmahaas waxay maraan waxa la dhahay diagnosis test specialist yaalka adiga waxa laga yaabaa hooyo aan ina wax yar darantid ilmihii oo eye contact ku siinaynin wax ku soo reply gareynaynin oo different behavior than ilmaha kala uu leeyahay marka cunugaas waxaa loola xiriiriyaa specialist waxaa jirta maamooyin qaarkooda ama family qaarkooda oo haddii maaragtay dad wax bartay yihiin ama dad wax ama meelo ka soo shaqeeya ama arkay xataa familka ku arkay laga yaabo inay click gareeyaan wax yar ay dhahaan waxbaa khaldan
ayuu aan dhakhtarka ula xararnaa caruur qaarkooda by the age maaragtay dam 10 sano 8 sano 9 sano ayaa lagu diagnose gareeyaa every xanuun ama baahi gaar aan kuu sheegayo ma aha wax 100% laga wada kacayo laakiin waa wax la improve garan karo xataa ilmahaas haddii kula hadlaynin waa ilmo aad maaragtay u jecel inay maaragtay kula laaf gareeyaan ay kula qoslaan emotionalkooda ay ku tusiyaan ilmaha down syndrome-ka qaba waa lagu dhalaa ayaga way ka duwan yihiin kuwan kale down syndrome waa ilmaha hadda down syndrome-ka waa chromosome waaye Soomaaliya ma ahan chromosome waxa lagu dhaho laakiin chromosome lagu dhalaa caruurtaas markay dhashtaanba already way qabaan badanaa waxaa la ogaadaa markay hooyada urka leedahay 5 bilood markii haddaad joogtid wadamada maaragtay caalamiga ah waxaa laga ogaadaa qoorta biyaha extra water ugu jiro fluenska iyo growth scanka waxyaabahaas ay ku ogaadaan waa lagu offer gareynaa haddaa rabtid further test hadday ka shakiyaan cunugaas inuu qabo down syndrome waxaa lagu offer gareynaa further test oo tahay cirbid caloosha lagaa gelinayo cunugaas maaragtay back of spinekiis lagu soo ogaanayo sometimes way qaldami karaan sometimes way saxsami karaan yani wuu noqon karaa cunugii oo labada case waan soo aragnay way ku dhashtaan ayaga waa ilmaha ay dhahaan Soomaalida Chinese-ka ama indhaha yaryar ilmahaas badanaa nooc hal nooc ay u eg yihiin subxaanallah hadday madow yihiin hadday Soomaali yihiin maxaa la dhahay hadday cadaan yihiin hadday carab yihiin Chinese-kaas way ka siman yihiin saas bay u wada eg yihiin just a different color hadda aniga wiilkayga wuu ku dhashtay mana ogeyn 9 bilood inta uurka soo waday alxamdulillah maalintan san u dhalay ayaa la ogaaday dhakhtarka ogaaday uu dhahay maxaa ka ogtahay wiilkaaga down syndrome-ka wuxuu qabo maxaa ka ogtaa ma ogyaan ku dhahay anaa Soomaalina cunug markaas u fiiriso ilaahay lixdiisa lixaad u dhameeyay you think there's nothing wrong wax ma ka khaldanaba cunuga markaas wuxuu dhahay quraan ku bogiso hada juz amo dhameeyay ma sha Allah tabaaraha maadaama uu asiga speech qabo alxamdulillah so markaan saas ay siga aan u dhalay Cabdullaahi dhakhtarka uu fiiriyay inaan panic gareeyo ka baqay ba dhakhtarka already wuu ogaa because ilmaha feature-kooda laga dareemaa subxaanallah inta wiigas isbitaalka joogo ma aan yani feature-kii wixii uu qabaa laakiin blood test was not showing yani ma tusinaynin marka dan wiiga igu keep gareeyay isbitaalka further investigation lagu sameeyay markaas la T21 chromosome-kaas uu qabaa alxamdulillah ilmaha down syndrome-ka qaba hadda wax yar nigaga sheekeeyo ilmahaas maadaama aniga qabo morna aan ku taqasusadaasay ilmahaas way ka islow gareysan yihiin ilmaha kale yani caafimaadkooda waxay qabaan waa daciif intay ka soo korayaan ka soo kubacsanayaan in caafimaadkooda waa ka daciifsan yahay ilmaha kale yani easy waxay ku qaadaan infectionyada hergabka marka aad loo alaaliyaa intay yar yihiin waxbarashadooda way ka hooseysa caruurta kale intay laakiin wax way baran karaan maxaa la dhahay education wise-ka markay ilmaha yihiin year 3 ayaga markaas la marayaan reception level-ka because aad ay ugu hooseeyaan ilmaha down syndrome qabo more waxay ku fiican yihiin socializing yani dadka si loola macaamulo lahay waa aad friendly u yihiin badanaankooda iskuulada yani more waxaa loogu amaanaa yani qof dhibaataysan maanta ma arki karo maanta dhan wuxuu roo qofkii inuu gargaaro qofkii inuu taabto xataa maanta hadaa meel fadhidid oo isdhehaysid maamada way xanaaqsan tahay ama waa huu imaana wada fers cunug ku dhahay ayuu okay hooyo ma fiican tahay maxaa khaldan maanta carruurta kale waxaa laga yaabaa inay agtaada kusoo socoto so very humble waa ciyaalkan waxa qabaan down syndrome-ka ilmaha CP-ga sidoo kale tahay autism-ka masha Allah waa ilmo ilaahay nimco nagu siiya anaga laakiin bulshadii aan fahmaynin kii ilaahay cirka ka soo gameeyay dhashay cunugeeda ma fariisanayo waa lagugu soo inkaaray eedadeeda maaragtay lacagay u diiday yani qiila lagu raadina laakiin ilaahay abuuristiisa alxamdulillah ina dhaxwaaye so ilmaheena amazing u yihiin in their own ways yani masha Allah tabarakallah anagana waan nimceysana maanta wax naga maqan ma laha alxamdulillah masha Allah
markaad bilowday ololadan inaad wacyigelin ku subiso oo campaignkan oo hay qaranin bulshadana Soomaaliyeed oo qalbiga fiyowen oo xanuunsan Ilaahay caafiye bas dareenkooda suu ahaa ama how was the reception wallahi horta wax sahlan maaha daarun ku sheegayo yani markaad dhehaysid ilmo baahi gaar laha u olleena bulshada waxyaabo badan kala kulmay waxa arkaysa qof ku dhahayo waxa ka hadlo sort ma fahmayo qofkaas run ku sheegay waad fahamsiinaysaa qofna wuxuu ku dhahaa adiga waxa rabtaa inaa dadka ka dhaadhacsiisid dad waalana daaweyna dad waalana meel iskugu keena dad waalana wax loo sameeyna waa fikirkiisa qofkaas somaha qofkii marka uu explain gareynaysa ani always waxaan dhahaa ka dhigba adiga yaa dhashay maanta ma haysatid laakiin beriyaa haysataa ma noo soo carare of course ma noo soo carare sidoo waxa 90% waan iska weyneynay waxa dhaysaa shalay dadkii ku jisaaree maanta uma naqan karo somaha laakiin waxbarashada waa shay muhiim ah maanta hadda ani wax kaaga fiican ah iga baro yani wax oo ma aragtay something is there why anaga laakiin dinay gareynayno aan iska indhatirono inaan iska indhatirna maaha waxa loo baahan yahay anaga wacyigelinta waa bixinaa waxaan tagnaa kaaman badan wajeeraan aadnay gaarisan aadnay Nairobi waan ku sameynay hadda Mandera u soconaa haduu Ilaahay yaraa medical camp aan wadanaa markii kooga aad tagaysid meelahaas waxa is dhehaysaa medical campka qaf ma imaanayso because way baqayaan laakiin saddexda beri aan medical campka joogno almost 700 500 600 people ayaa soo aragnay oo kulligooda qaba baahi gaar la caruurta wata oo qarinay kulli way qarinayeen laakiin hadda opportunity-gan waxay u soo baxeen in ilmihi registration loo sameeyo birth certificate loo sameeyo waxa loo sameeyo kaarka caafimaadka of course waa qofkii weerabta because waxa laga yaabo waxaas dhan inay bahaysanimo that 700 and 600 people aan aragnay documentskaas aan haysan so adigoo hadda documentskaas haysan accesska ayaa ka yaraanayo aad ku heshid caafimaadka waxa ka yaraanayo access aad ku heshid educationka marka waxa jirto dad badan aan ogeyn waxyaabaha gobolada haystaan for example Garissa waxay u offer gareyso ilmaha baahida gaarka leh wajeer waxyaabaha u offer gareyso ilmaha baahida gaarka leh iskuula jiro takhaatiira jirto so dadkan waxay ka imaadeen buulooyin badan marka anaga qaabileena ama 600 kama 500 ama from Garissa ama wajeer labadooda markaas ka compare garay badanaa waxay ka imaadaan dadkii gobolada buulooyinka ka imaadaan dadkii meesha joogo kulli waa labada imaad because radio station wareegay maalmaha aniga sameynayno wacyigelinta maxaa la dhahay masaajidada Friday-ga khudbada way ka hadlaan inaan maalintaas aan imaanayno aan wacyigelin bixinayno iyo takhaatiir ay noola socoto so yani faa'iido badan ayay ka helaan yani the more anaga maaragta aan ku xiriirsanaano masaajidadii takhaatiirtii maxaa la dhahay radio stationada TV-yada yani dadkii message-ku isku sii dirayaan marka dad badan ayaa imaaday sidii ku imaadeen dadna dadkii ayaa isku dhaxdooda isku sheegayo marka waxaad arkaysaa in aad loogu baahnaa barnaamij noocan camal ah waxaan ugu jiraan takhaatiir oo maaragtay oo Kenyan Kisii ka imaadaan Nairobi always way noola travel garayaan meeshaan tagnaba way nagu caawinaa sida Department of Disability as well registration loo sameeyaa ilmahaas therapist loo sameeyaa nutrition yaala ka mid ah therapist ani xataa therapist dhinaceegan ka sameeyaa hooyooyinkii maaragtay cancellation loo sameeyay oo maaragtay hooyooyinkii naftirkooda cunugii waxaad arkaysaa hooyo dhibaataysan cunug adiga 18 jir wado cunugii haysanin wheelchair nutrition fiican haysanin kaarka caafimaadka haysanin xataa birth certificate-ka yani dhalashada 19 jir oo dhalasho haysanin waa soo aragnaa anaga marka waxyaabahaas dhan meesha loogu provide gareeyaa waalidiinta yani ayagoo faraxsan ayay baxaan marka saddexda beri campkeena noo dhamaado waxaan siinaa dry food as well
oo maaragtay walaalahena kale Red Crosska iyo others nagu caawinaan yani baahida jirto waa dareemi kartaa yani meel isdhehaynin disability ma ku noola ayaa waxaa kasoo baxaysa 700 plus 600 plus ha so caawinaada anaga waxaan u joognaa inaan caawino walaalaheena aan wila fi sabiilillah ku caawino caruurteena kasoo tagno xoogeen iimaankeena sii gelino markaasaas dhehdeed waxaa lagu dhahaa maya anaga waxaa nagu qaadanoosiin lacagaha nagu qaadanoosiin waa iska dareemi kartaa waa qof dad badan oo maaragtay waxyaabo badan soo sameeyaa jiri karto ama wixii sax u soo sameeyeen ama qalad u soo sameeyeen laakiin anaga always waxaan u taaganahay inaan support gareyno waalidiintaas haysto especially caruurta baahida gaarka leh hooya waxay ku leedahay cunugayga 10 jir waay xanuunku qabana ma ogi maadaama buula ka imaaday cunugan dhagaxa lagu tuuri jiray ku leedahay waa la takoori jiray xataa banaanka ma soo fadhiisin jirin adiga see ku haysa cunuga aniga qolkan ku xiri jiray lugaha laga xiraa waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo cunug ka qabtay baahida gaarka leh gaarisan ku arkay 10 jir 12 jir meelahaas hooyadii gacanta ka haysa ama astaghfirullah aabaha gacanta ku haya hooyadan ule wadataa adiga 3-4 hours ay meesha joogeen kaamka was eersanayeen marka anigoo maraayo paperwork sameynaa warqadana taqaadir u keenayo arkay maamadii oo cunugii urshi u wadato because labada waalid ma fahmoyaan cunugan yani see lagu caawin karaa usha cunuga way ka sii dareemahe cunuga kuma dagaayo maamadii u tagay yoo ku dilin kasiko gabadheedii kasiko cunugan dadku dilay yoo ku dilin may hooyo ku dhahay ima dilay okay way iska dhaafade aabahan ku dhahay ida cunuga maya wuu ku dila iska daa ana la dil kareenayo wiilkii gacanta ka qabsaday bartuu joogay aan la fariistay caray ahayd yani ma ka ashashin ani ilmahan waa jeclahay ilaahay dartiis wallahi waan jeclahay caruurtan waa la fariistay waxaa wataa kalaro iyo warqad iyo khalid iyo waxyaabo yar aan ku entertain garay caruurta hooyada waxay tiri cunugan weligiis qalin ma qabsan maxaa taa qalinka u dhiibaysid hooyo iska dhaaf adi ana ii dhaaf wax yar qalinka isha kaa geliyo hooyada yani inta aniga cunuga la diil gareenaye hooyada waxyaabo badan korkay ka sheegaysa hooyo adi iska dhaaf cunuga non verbal autism u qabay ma hadlaynin very hyperactive ana cunuga waa la fariistay waqti igu qaadato horta to convince him inaan la fariisto bartaas markaan la fariistay qalinkii aan u dhiibay waan ula raacay waa ogahay inuu cunuga qalinka fiirinoon waan u jeedaa in cunuga maaragtay concentration ii haynin waa u jeedaa cunuga inaan wuxuu qorooy xataa maaragtay oo dan ka lahayn laakiin waan siiyay waan isla sabreen gacantiisaan u saaray waa la draw gareeyay yani waxaan rabaa intaas inaan mashquuliyo waxaan rabaa inaan tusiyo hooyada cunugan inuu wax yar u baahan yahay in la mashquuliyo wax yar inuu u baahan yahay waqti ma ahan in maanta dhan ul ay ku cirsato hooyadii aan la sheekaystay hadda waxaan sameeyay maaragtaan minimum 5 to 7 minutes waan fadhinay hadduu kan diido wax kalaan tusinayo waa u jeeda qalinka afka u gashanaa markaasaan ku dhahaa afka ha gelinin no so waxyaabo badan anaga soo baranay waa ogahay waalidiinteena inay aqoonin laakiin waxay u baahan yihiin in la baro ina iskuulo loo furo ina therapist ayaga maamooyinkii la siiyay u baahan yihiin because ilmihii ma fahmayaan hooyadii saan xanuunya ku qaadaysaa so badanaa marka mala siiyo hooyadii caawinaad gooni ah caruurtii loo jeedaa marka always aniga parentka ma shaqeeya xataa caruurta kaliya ma shaqeeyo marka hooyadaas waan dejinaa waa u fasirnaa ilmahan saana wax loogu sameeyaa ilmahan kana wax loogu sameeyaa waa ogahay ilmahan ma fadhinayaan يعني concentration كودا ير attention كودا عاد وسير لكن وحير إن busy لقى ديجو هو يدي عاونات ما هيستا هو يدي وحلاقي يا وعنقان انتو حبين كيدان أصول شيء إن إيه هاي سنة أبا support كريم وحلاقي يا أبيه إنه فديكو دير الأوجو حبين كيدان last minute أقوله سو قلاي هو يدي exhausted واي يعني overloaded واي ما أنت أنا عنقي تبع عراريسي ما نصنم أبيه at the same time وكسي قيلنايو
maalintii xanuunsada aga sii daran tahay oo dhahaybo see ku xanuunsan kartaa adiga because cunugii ma hayn kara sumaha laba beri markay xanuunsato u dhahay ka kac maalin kasta ma jiifaysa adiga laba beri asi waxay ula tahay maalin kasta hooyadan labada beri ee sariirta saaranta xataa still maskaxdeeda active waayo waxay leedahay meeshaas waxa iska dhaaf saan u qabo kan u yeel xagga ka alaali yoo bixin yoo yeelin ayadoo sariir jiifta still maskaxdeeda active waayo so hooyooyinkii marka caawinaad ma haystaan oo waalidkiina caawinaynin yani odagay caawinaynin oo walaalaheeda ay caawinaynin waxaa laga yaabaa inay dhahaan yaqa ilaahay waxa cunugkii haysataa yaqay reerkaas ma fariistaan ba maxaa lagu imtixaan ha reerka aan fariisanayn maxaa uu martinaynaa so Somali community waxyaabo badan ay face garanaysaa caruurtii markay maamadaas waxay u baahan tahay nasiin u baahan tahay especially aabaha daba socday nasiin u baahan yahay ma ay fahmayaan cunugooda sida xataa loola dhaqmo ama loola dil garayo maadaama ay bulooyin ay ka imaadeen waa fahmi karaa laakiin waxaa laga rabaa dawladda iyo maaragtay inay u furaan sentara caawinta caruurtan sentara caawinta waalidka needs big support haddii hooyada xanuunsan tahay cunuga wax ma qaban kara yani hooyada waa the key maskaxda guriga waay caruur kalena way sugayaan so marka adiga maanta dhankan oo wiilkan ama gabadhan aan maaragtay 100% life-ka ay gelisay waxa laga yaabaa kuwa ka yar inaa haysatid at the same time hooyada maasha Allah tabarakallah very active hooyooyinka they do multitasking kanay sameynayaan laakiin looma jeedo waa lagu talagalayaa lagu dhahaa adi inay caawintay adi naftirka Ilaahay kugu talagalay sama aawa qalbiga igu caawin lahayd aawa yani ina adi fiirisid waaye not ina adi icaysid not adi ina itikortid not adi ina ideedid hooyadii naga daayaqa dadkaas looma martin karo naga daayaqa dadkaas meel ma cunug xanuunsana joogaha so ma laakiin hadaa maanta ani iimaadid in isteexaysid ay dhahdo abaayo bax half an hour xataa seexo waa daashay ana ku haynayo way adag tahay 90% way adag tahay qof mantahay Ilaahay si qalbi ayaa laga yaabo inuu ku dhaho abaayo bax naso xataa xaafadeeda tag ana la sii joogay caruurtaada soo marka bulshada aad ay u dhawaataysan tahay kaamamka waxyaabahan ku soo arkay waxyaabo aad iyo aad waxa waaye emotional iga dhigay yes aad energy way hooyada baahida gooni qabo waad ku fiirsanaysaa fariinta aad u dirayso maxaa weeye hooyadaas waxaan u diraa waxaa tahay hooyo strong hooyo qalbi wanaagsan tahay qof maanta ku gaartay aysan jirin Ilaahay garabkaaga ha galo waxaad haysataa nimco Ilaahay ku siiyay koolkooli qofka ku caaysana wiligaaga maaragta ha u reply gareenin caruurtaasna banaanka soo saar ka dhig caruurtaada kale masaajidada gey quraanka bar fasaxyada gey xafladaha ha ka qayb galo noomara tacliinasi cunugaas marnaha isdhihin horta cunugan wax ma baran karo taqaatirtu waa laga yaabaa inay ku dhahaan asxaabtaada waa laga yaabaa inay ku dhahaan adigaas laga yaabaa inaa iska dhadhacsiiso cunuga hadduu hadlaynin xataa qalbigaas ayuu kugu dareemaa cunugaas hadduu hadlaynin xataa way ajirto kugu yani kugula sheekeysana indhahooda ka arkaysa afkooda ka arkaysa caruurtaas markay faraxsan yihiin wajigooda fiiri يعني نمعة إلهي كسي وايو ما أنت وح مكان مخنا مال كأدون كل شيء جاي إله جورجا وكوك يعني مركو حلقة روى عنقس إنا على الستين وأوجها المهنة كل جود حنون أسكو حلا مقبان حنون يكلا دوبنا قبان لكن وحو إلهي نقوم النمعي وأنا هنا الحمد لله على شكر الله تذكين ولا له هنا هنا ويعني حأركانه سأديك وتحكي لي سيد كنا جاجا نقوه يلغو تيصل إن شاء الله تعالى. فرينتا كان أقدر بالشيء الصوماليات أنا فهم سنين بهيد الجوني ده وحي تحي يمارتي هدي بنانا وأركان وحيالها كم مدن بنادن هان أما هذا مسلم هان معناه وحيالها الربعين ينسوبيان هذا يقف أما عمل تعاليس أركان عن بهي قوا ربع بطل تعالي ما مرقار أركان بالشيء ده حكوا لي رجلنا bulshada Soomaaliyeed walaalihina caawina maanta walaalkaaga hadaa caawinta Ilaahay ku caawinayo yani
ma ogaan kartid beri inaa adiga saa naqan doontid ma ogaan kartid inaa adiga ilmo ilaahay kugu rasiqi doono oo special need ama baahida gaar kala markaa caawinta walaalkaaga yacni caawinaanta naftirkeeda qofka qalbi inuu lahaado waay iska caawin lahay dadka looma caawin ma fahmay so the more adiga aad aragtid walaashaa ama walaalkaaga haysto cunug baahi gaar lah ilaahay dartiis ku caawi Somali community waxaan u sheegaa ma ahan just banaanka familka dhexdiisa xataa way ku jiraan dad adiga maaragtay kaa hadlaayo ku dhibsanaayo walaalayaalo anytime aan naqan kartiin ilmo qabo baahi gaar lah ama aan haysi kartiin caruur baahi gaar lah ama adigaas xataa naqan kartid qof baahi gaar lah marka weligaaga ha ku jeesjeesin nimcada ilaahay ku siiye waana alxamdulilah dhehnaa soo dhaweyso inta tabartiina ah soo dhaweysta sida masaajidyada caman hadda masaajidyada caruurteena ma laga soo dhaweeyo run hadda kuu sheegayo yacni waa ogahay waa meel maaragta loogu talagalay laakiin yaa u diida kan salaad inuu kula tugto yacni patientkaas ma haysan aan kusoo dhaweyno ilmaha baahida gaarka la keega ka mid ah xataa ma ku dhahay maadaama ilmo baahi kala gaar ay qabaan behaviorkoodan oo different kala yahay masaajidyadeyna from good behavior to bad behavior put it in that way ba caruurteena way soo raacdeeyaan cunugan behaviorkiisa saan waay ma lagu hayn karo masaajidku ku dhex ciyaara cunugan saan waay wax ma baranayo yes masaajidyadii accessibility ma laha for wheelchair dadkii caadiga xataa dadkii naqdeen yani maanta haddaa dhida masaajida aadaa wheelchair haystaa ma laha meelaha ku kortid accessibility dhan ma laha dadka masaajidyada shuquuqdeena waxaa leenahay nosoo dhaweysta ilaahay dartiisa noo soo dhaweysta caruurtan wax way baran karaan aniga si lay soo raacdeynayo maaragtay aan ku dhahay may hadda wallahi Mombasa especially waxaan degay guri kasoo horjeeda masaajidka saan u barale cunugayga inuu masaajidka gali karo marka aniga baran waxaa lagu leeyahay cunuga masaajidka ma imaan karo cunugan qof buu bush gareeyo yani wax yar ayaa wax weyn lagaaga dhigaa 3-4 mar ana sheekhu uu soo dacwooday markaas ku dhahay sheekhu salaamu calaykum kadib ba cunuga adiga dhashay maxaa sameeyay walahi way ga aamusay because yani sheegashada way ku badato somaha wixina wax yar waaye waa dabari kartaa waxa markuu wax weyn yahay maro dib soo galay waa jirtay aan guru ku haayay laakiin waxa wax yar basiit ah waay wixii basiitka ah adiga as waalid ahaan walaal ahaan ku dheh walaalo dhaaf waxaan dheh tomorrow you never know adiga always waxaan dhahay tomorrow ma ogaan doontid ina ilmahan dhalaysid adiga aan naqanaysid disability adiga hadii ka waran yani positionkeena isgeliba positionkeena galba يعني هسه أقوله معاملة لهاد المها والله هذا سنوين بدنا عندنا هاي كومبلينكو إغير هذا مركو تربل قال هذا once in a while معناك مركان جتكو كوارك هاي يعني سوا ويلكي كورن ما يهدو في عينها لكن مركي كو was very difficult هي أنو كو accept قرايان عنقو مساجدكو وجوبو physically مرو قفل دقالة المها هو very sensitive أيها لكن والدين توحان لي هاي the more أبرتيد cunugan inuu masaajidka aadi karo the better ayaga ay u tahay yani wax fiican ay u tahay way adag tahay horta la baraayo yani waa big duty ilmaha waxyaabaha markii la baraayo wax weyn waaye because ilmahana most of them maskaxdooda empty waaye waa adigoo computer wax ku shubeysid waaye wax fiican inaad ku shubtid oo wixii xun aad ka saartid oo yani saasan ku dhaqana cunugii aday maanta dhan ku suureys gareynaysa ana dugsiga u diiday Soomaha gurigan ku bartaa معمد برايفت عن قبصدي أسيجي برتا يعني أنا train جريستي يعني كده سان وحياوها أنا تشجر جري وحياوها مركو سمينا ومجعله مركا وحياوها أنا كألالي فريند اللي يقولون أخو قولي بركة كبرس كم قيب قاعدنا سميها خريطانك ما حنك قيب قاعدنا أنا خريطنيش ماي كم قيب قاعدنا because we saw برتي school وصو برتي ما دام school كان هذا دوكسيجان أو إيدا واي ومعلن كديدي يعني جورجا المهجر أنا كوبرتان كلي سماها عروتي أنا كوبرت جورجا يعني هذا كلي جسكري لها عروتي البنانكو بحلها معناها واخرين ها لكن أنا عروتي كل جودة بقى وحي كوبرتان جورجا وهم school ما دوين كان جورجا كوبرتان مركا
maanta ani isma dhehaynin runa taa fiican soo maaha cabdullaahi yaa jus ama dhammaynayo waxay ku qaadatay 3 years oo looga soo bilaabo alif anaga oo naqaaneen suuradaha yaryar laakiin still waxaan dhahay beginningka looga soo bilaabaa maanta suurad jus ama uu dhameeyay waa juskeeni maasha allah tabaaraka allah carabkiisu wuu adag yahay misdhees maanta ninkaana jus ama dhameeyay so dugsiyada ilmaha wax way baran karaan anaga waan sameynaa wacgelin oo short videos xataa waan sameynaa aan dhahayn cunugan wax uu baran karaaye yaala yasin give them much opportunity waxaa laga yaabaa ilmahayna autismka qaba maanta inay cararayaan laakiin dhagahooda waxyaabo badan ay galaayo waxaas imagine macalinkan oo u maleeyo inuu cunugan wax fahmoonin at the same time waxaa arkaysaa cunugii wax macalinka wax u sheegaya qur'aanka maanta dhan ama ilmaha ku subcinayeen waxaa laga yaabaa inuu recap ugu soo sameeyo adiga cunugii waa yastee laakiin ilaahay ma yasin still ilaahay waxyaabo badan ugu nimceeyay caruurtan masaajidyada waxaan ka codsanaa inay maaragta xataa ay siiyaan hal saac weekii classes ilmaheena wax weyn ma aha aniga personal way isoo wacan karaan waa ku caawin karaa yani waan samayn jirnay in ilmaha la baro systemka masaajidka cunuga hal mar le oo la keenayo masaajidka way ku adkaanaysaa ilmaheena badanaa waxay ku socdaan step in wax loo baro marka step u bartid is okay so masaajidyada waxaan ka codsanaynaa at least 2 hours weekii ama bishii inayna siiyaan oo ilmahan lagu baro leh maaragtay masaajidka meesha lagu weyse qaato meesha lagu aadaamo kitaabada meesha yaalaan you know duutigaas anagana laga rabaa ayagana ayna dhibsanin of course caruurtan ma fariisanayaan of course caruurtan ma ku fiirinayaan dulqaad u baahan yahay laakiin anaga da Soomaali community na dulqaad ma haysana ninka sheekhi ahaa walaadkii ahaa rabna inaan ku soo cararno uuna bush gareena ya markaa ku cararnaa marka la khalad mar ma jirta aan tagi xigta magin county Lamu oo governaga saaragnay oo itilmaamay school oo dadka baahida qaba schoolka markaan tagay 45 cunug arganaysay qaarkood waa 40 jir yar qaarkood way ka weyn so uniform ay qabaan manhajkooda tagooni waa mana class fasal ay qabaan oo fara badan so qof weyn harka soo jiro uniform qabo so qaar hata mal inay qalin jibiyaan laga yaabo laakiin curriculumka isticmaal manhajka ma aha midkii oo iska caadiga manhaj gooni ay qabaan oo special need education ay qabaan wayna baran karaan in aan anaga soo gabeynina bal fariin ina u dirtaan rabaa dadka baahida gooni qaba khaasatan caruurta ina malatay bal ina niyada u dhisto bal aad la hadasho ayaga inay special yihiin inay dadka kale ka liidanin inuu maartay ilaahay si gooni ugu nimcay oo maartay dadkana ka mid yihiin bal fariintaas u dir in 1 minute ilmahana special need ka ah your own ways special their own ways special yihiin waa ilma amazing ah in their own ways and waxaan leeyahay hore u socdo ha dhageysanina bulshada Soomaaliyeed markay niita ka horeyso hore u socda waa liibaanaysiin waana gaaraysiin rajooyinkiina insha Allah taala ma sha Allah hooyo ama waalid qabo cunug baahida gooni qabo muu kula soo xiriiri karaa si maaragtay aad xagga telefoonka aad maaragtay dhiirigelin ama wacyigelin ama haddii su'aalo qabaan inay maaragtay ku soo bici karaan nambarkaada noo fasaxday ina waalid walba meeshuu rabo ha joogo dalkii dibadda inay ku soo bici karaan kula karaan gabaraan qabaa wiilaan qabaa baahi gooni u qabaa arrimahanan la tacaalaya adi macnaha as kind of maaragtay waana ama advice nambarkaadan bixin karnaa meeshaan waxaa u fadhiya waxaa inaa caawino walaalahayga Soomaaliyeed Somali community iyo muslimiinta inta adduunka ku noolba yani maanta ani haddaan dhaho manii caawinayo xagee ku cararaysiin welcome atihiin anytime ay soo wacan kartiin insha Allah taala emailkayga nambarkayga oo fasaxan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay dadka badi ayagoo sii haysanin maaragtay khibrad gooni ama xirfad gooni oo caruurta lagu handle gareeyo welina oo sii qarinaya welina uma caddo cunugii haddii ku arkeen baahida goonida inay takhtar u jiro special need oo ku takhasusay caruurta baahida qaba inay jiraan badi kama warhayaan iyo inay caruurta maaragtay meel center la geeyo ama special need school ee la geeyo
Nairobi qofkii jooga ama Garis jooga Mandera jooga ma inta kara carruurta ama dhakhtar sidee loola xiriiri karaa ama inta goobaha barashada oo aad tilmaami karto wallaahi horta Nairobi horta waa magaalo weyn meelo badanna way leedahay hadda kisay meesha dhahan camal Kenya School of Special Need Education maya Kenya Institute of Special Education meeshaas boqolaa la dhiibaa oo Kenya shilin facility badan ayay haystaan therapist badanaa loogu sameynaa cunuga laakiin meesha wax yar meel dheer way fog tahay ha iskuulo badanaa jiraan private ah waxaa jiro xataa iskuul oo gabdho walaalaheena ay leeyihiin oo South ku yaalo dadkii u dhow areada outreach la dhahayo marka aniga maadaama aniga baskii oo inta ahaynin bema sheegi kare ma ogtahay ma dhihi kare school hebel like a variety of places way yaalan hadda ila soo contact garaysiin waxaa laga yaabaa inaan more yani research ni sameeyo ama nigu xiro sida Boyan camal waa another school qaarana ha Garissa special school ha Wajir special school yes waa iskuulada anaga ku soo qabana programka waxay offer garayaan boarding schools waxay offer garayaan waxyaabo badan oo maaragtay ilmaheena baahida gaarka ah loogu talagalay marka waxaa la dhihi jiray Kenya maxaa la dhahay sorry for example Garissa ama Wajir ama Kwale school aan ka soo shaqeeyay kulligooda wadankan iskuulada badan waxaa la dhahaa mentally handicap for example mentally handicap Kwale school so eriga ama school of deaf ama school of blind yani aniga wax weyn ila naqatay markii ugu koowaad aan ka shaqeeyay Kwale aan arkay just mentally handicap school yani waxay ila naqatay wax lama filaan ah yani imagine wiilkayga already special need waaye already waa la caaya haddana waxaa la yidhaha najmaaya cunugan xagee geysataa mentally handicap baa geystaa yani waa wixii dhan waan saxsaday يعني وأكسبت قرية وحن أكسبت قرية بولشدي وعيسى حنونكيسة إيو سكول كأنجي وما قاعد يصل ده هاي mentally handicap يعني وإلى نقويس وين بإلى نقطة وحن كجيفون وإلى نقطة وحن كارسون وإلى نقطة سو وحن decide قرينا أني تيجي سنكبدل اللي هنا ما قاعد mentally handicap إن أفعل كذا كلام مدة نقول قاعدتي لكن الحمد لله ما أنت لا نجوكني يعني success نكون خنين ما قاعد mentally handicap ولا بدلني magacyada maaragtay special school magacyo yani magac qalbi uron ay wada baxsadeen ma sha Allah tabaarak Allah that's a big success way yani wax sahlan ma aha ma sha Allah hada insha Allah taala waxaan rabnaa dana ilmaheena baahida gaarka qaba in caafimaadka in lagu caabiyo haduu Ilaahay yaraaho insha Allah Mandera hada joogto fadlan teamka hala taageero shaqo maxay ahaan amazing aad aniga maxad celinayna bulshada Soomaaliyeed Ilaahay khayr iyo xasanaad aniga siiyo shaqo maxay haysiin ma sha Allah aad maartay aad wanaagsan Mandera waan liiso socdaa dadkan soo dhaweeya hatta cunugaada haduu qabin haduu special leader ama baahid guur qabo ima salaan macnaha information ka qaado insha Allah Najma aad u masantahay for that amazing episode barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayna maanta fariin maxaa iga from the show bulshada Soomaaliyeed haddaa qabto cunug maaragtay baahida goonida qaba oo Ilaahay ku maaragtay kugu manaystay horta carruurtaada iyo cunugaas ama carruurta kale horta inaa kala soocin ee halku yihiin bulshada Soomaaliyeedna waxaan ku dhiirigelinayaa carruurtaana waxa dadka caayibada carruurta marka banaanka la keena u sheeg carruurtaada inay carruur kale oo maartay baahida qabaan inay caaynin ay dhagax tuurin dadka waalan naftooda ay dhagax tuurin carruurtana yaa la qarinin waxaan dadka waalan lugaha laga xiraaya dadka maartay baahida gooni qaba guriga lagu reebaa la xiraaya hal iska dhaaf Ilaahay laga cabsado dad muslimiin ah dadkaas waa dad ayagana sidaan oo kale banaanka la keeno wixii la caabin karna hala caabiyo hadda daris tahay oo dariska ugu dhagan uu qabo cunug baahi qaba sidoo kale ka warhay wixii ku support garan karto sababtoo ah dadka najmo noo sheegtay mar qaar ka nasiib inuu soo nafiso adigana carruurta maaragtay aad u sii hayso wakaasoo
inta xanuunsan ilaaha caafiyo inta kaloo maaragtay caafimaadka ilaaha u ziyaadiyo xanuunada iyo dabeeladan ilaahay maaragtay dhinaca naga mariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada qaybta labaad ee waraysigii Don't Hide Me, hay qarinin. Waxaan waraysi horan la soo yeelanay hooyo Soomaaliyeed oo geesiyada oo la dhahaa Mama Najma oo u ololeyso dhalinyarada ama caruurta baahida goonida qabo ayadoo maaragtay programmo badan oo wacyigelin Soomaalida u soo bixisa. Maanta waxaan kaloo nasiib u yeelanay inaan la fariisano macallin asagana baro caruurta baahida goonida leh. Macallin Muxudiin ayaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno oo Wajeer iskuulka Dhagoolaha baro ayaan nasiib u yeelanay inaan maaragtay ka wareysano bal tacliinta caruurta baahida goonida qaba sida u taala iyo sida u kala baxda iyo inay caruurtan wax baran karaan oo maaragtay iskuul intii la geeyo ay wax baran karaan. Macallin Muxudiin aad u mahadsan tahay inaad maaragtay aan nasiib u yeelanay inaad maaragtay sheekadii noo soo socotay shalay inaad maaragtay qayb ka noqoto oo xagga tacliinta aad maaragtay naga caawiso. Macallin su'aashan ku weydiinaya hal daqiiqo bal Muxudiin macallin Muxudiin yuu yahay iyo meeshaad barto iyo waxaad barto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Muxudiin Xasan Isaaq. Macallin waxaan ahay dhanka farsamada sign language loo aqaana garanaya oona dhankaas ku takhasusay iskuulka Dhagoolada ayaan baraa dhankaas iyo Wajeer. Masha Allah macallin marka la leeyahay caruurta baahida gooni qabo ama special need education ama special need school caruurta see wax loo baraa? Walaal horta waa run caruurtan baahida goonida qaba wax way baran karaan si gooni wax loo barana waa jirtaa dadka kama duuna laakiin sidii ayaga ay wax ku baran karaan baan wax loo baraa sidii qofka haduu dhagaha la yahay dhaga la'aanta laftankeeda ayaa qayb badan qabta marka qof waxaad arkay dhagajiga oo laakiin dhagaha ku wata wax maaragtay samacada kor u qaada ku wata qofka camal waxa laga yaabaa inaad maaragtay faruurahaada lip reading wax la dhaho uu sameeyo bishimahaada uu akhrinaya mid kala dhagaha wuu la yahay maaragtay dhagaha dhan buu la yahay farsamada xageed gacanta yaad wax ka baranaya gacantaad wax ku tusi sign language ayaa la dhaxsaas wax ku baranaya qaybo badan dadka indhaha aan qabin braille wax la dhahaa ayaa wax lagu baraa marka braille-kan waa cilmi gooni ayadana laakiin dadka kale oo maaragtay isku class-ka ay ahaayeen ama cilmiga ay baranayeen u baranayaan waa si gooni oo maaragtay ilaahay kuma dulmaaya ilaahay maadaama uu indhaha ku tiri cilmigaadii ku siina dadka kula sima haddaad dhagaha laadahay dadka kula sima si gooni oo adan wax ku baran karto oo dadka kala mid noqon karta ayaa lagu sameeyay saas ayaa jirta. Bal macallin nagu salaan sign language ka tan usal maxaa dhahdaa waan salaamay magacayga waa Macallin Muxudiin waan salaamaya bal sign language nagu dhahay. Okay, karibu welcome orda sign welcome waaya welcome yes so hello aan leeyahay soo dhaw saan waaya hello hi iyo hello waan dhihi karaa markaan maarta salaanta muslimka aan kugu salaamayno waxaan leeyahay assalaamu calaykum intaan taabanaya saana u qabanaya assalaamu calaykum aan leeyahay my name my sanwaya my hadda taan u marinay shafka my name labadan farood ayaa taan isku garaacay my name is sanwa is marka taas waa English ka caadiga ahay waay marka oo kii kala laakiin Kenya sign language magal laha name mine waa fin gospel gareyna marka Muxudiin camal Soomaha M U H U D I N Xasan camal aan qorraba space aan siinaya H A S wanjida san waa loo qori karaa laakiin wanjida aniga n sign name waxa la dhahaa jir marka sign name waxa waa aqoonsi cunugan dhagoolka ama dhagahala kuma ogaan kara magacaada ma ogaan kara midka jooga Mandera midka jooga America midka jooga South Africa midka jooga Garissa dhagoolada dhan
nin walbo sign uu qabaa signkan waa aqoonsi aan isku ogaana kuwa Mandera iyo kuwa kale waa kala gooni nin walbo sign gooni uu qabaa signkana waxa dadka siiyay waa ilmaha dagaal la'aanta ayaa dadka siiyay aqoonsigooda waay bil مثلا adi hadda Cabdinuurow waxaad wadataa kiyaalaad wadataa dadku waxaad kaaga duwanta marka waxaad kaga duwan tahay meeshaanaad baryal ku qabtaa meeshaan sunnada ayaad wax ku qabtaa marka nabaraa ku leedahay cabdi camal saanaan leeyahay marka kiina marka qabi sa aqoonsi gooni waaya oo cunuga uu tilmaam waaya so ana marka aqoonsigeedii sign name sign san waaya name ana san waaya san letter m magaceeda m oo ka bilaabana soo m aan dhagta hoosteeda marna maxay ugu bixiyeen marka waxay dhaheen dhagtaada waa yar tahay adiga waa maxaa dhihi jiray naaneyskeygi dhagoolaha qofkaan dhagaha aan qabin hadda midka Mandera joogo haddaan dhaha ama yar kale oo dhagool hadday aad u sheegi rabo aniga inaan wax sheegay ama aan maanta interpreter ka ahay ama maanta haddii rabo asley waxaan ogaanaa marka hay inaad muxudiin aas yahay laakiin dadka meesha isla degan oo maartay sida naaneyska oo kale isku garanaya dadka un baa isla isticmaala mid kale qof dhaqo sign name ku sii kara qofka sign name ku siin kara waxa way midka dhagaha aan qabin waay meesha dhaxtagi waxaad fiirna amal qalna inta ku wata laba qalin dadku ka dawanta nin laba qalin wato jeefka ku wata hadii amal cabdi Soomaa sanad ku leeyahay waxay laba qalin la wata هذا مقعس مرة مستعمل مرك ولقى مقعس ناينس كذا واقع مركز ساسا جرتا واو ان شكا نو بدبلي ان مدة حرفها مستعمل كرا لكن مدة كلو شوت كات كي ما دام اوت اخرين كرن مقعد شيء كرن شوت كات سان عملان ليه هذا hello my name is then finger spelling قوري مركز اوكي ان هوي سنده هوي ماذا هوي موقتها ان بدن دبتا ayay ku gelini xasuusta maada qof dhabta ku gelina waay aba laba jeer baa la dhihi karaa father waa dhihi karnaa American sign language ajira father ay leeyihiin fahant father waa la aqoonsi father waa adabtaan dhahda waxa la ogaanaa inaad father ay tahay saan hadda dhahdana father inay tahay waa ogaana cunuga dagaalka dagaala walaashana sister someone sister san sister naski way brother amal aan leeyahay sister san mgan dhahan naaskan taabanaya walaasha waan ku taaban san leeyahay marka walaalkana sama brother brother xaaskaadana islaantaada married sama married qof hadda jeceshayn I love you I wasan love you I love you so dadkan ku dhahay I love very good saas weeye ma sha Allah macallin waa cajiib walaa وصل قدونا معلنا sheekadii maalin hore wareysiga aan la wareysanay hooyo Najma arin maartay la qiirooda ayay noo sheegtay in Soomaalida ay maartay caruurta baahida goonida qaba inay caadaysteen inay qariyaan way hadda markaad tagto moolayaasha meelaha lagu ciyaara gobolada ciida meel walba way adagtay saa ku aragto cunug maartay baahida goonida qaba waa la qariyaa wala mid kood kulay maama Najma oo sheegtay in maartay waxay u qariyaan maxay dhahdeen waxa kamid ah marka banaan keento dadkii baa aflaga deeyni oo caynaya bal maartay qisooyinka xanuunka badan ama maartay adig la yaabtay si loo dhaqmo caruurtan baahida goonida qaba bal hada wax ma waxaan ugu taabto walaashay Najma waxay sheegtay run weeye sax أنا لفتن كيجا أنا دن كان مارك تبرايا دقولود برايا قابلي تكورة وحكي اسكدع كوي دقولها ما بحب كوي دقولود اسكدع روح دالي اسكدع أنا جو أوبي يعني معلم كودي قابلي تكورة ولا ليه معلم دقولها هاي ماضي معلم دقولها هاي ماضي أنا ميل فدية هدو إنك دقول أنت صوّع فيديو كول بدي أنك مارت ككومينيكيت جرينا كهذا ماشي أنك حريرين فيديو كول ما دام أي تقوي سواعة هدان كقوم واي وحناقة محيل ننقل أولش كيسنا ملها أنا دبا maybe وحلاقي يا إن دبي سواعدي نعم
haddaad dad dhaga qaba haddaan ag fadhiyo niyahow raalli ahaw ama kuwaanaan kusoo nacnay dhagooladaanaan kusoo nacnay dawladda marba ku daba socota dhagooladan ku daba socota maxay tahay niyahow kuwaana agtaada loo imaadayn niyahow xagga kula soo hadal already stigma ah ka jira meeshaas war anigii yaaba baxsan la anigii dhagoolaha barayay oo macalinkooda ahay aaba macalinka bulshada ka baxsan la niyahow adigoo faraxta taaga aan arkay ma waalat waranka ma waash waa lasweydiina dhawaankan iminahan damba waa waala rabtaa lili faraxta taagaysa faraxan taaga haya ina ummad u khidmeynaysa laga ma warhayo la ogo qofka waxaad ku leeyahay niyahow kuwaan si u dhex jirto aakhir waa u noqon doontaa dawladda noqon doonta dhagoolaan noqon doontaa marka waxaan ku dhahaa waan weydiiyaa nimiyow ninkan cunugan dhagoolka hooyo aabbaa dhalay ayaga maxay dhagool u noqon waayeen markaad ileedahay adiga dhagoola noqon doontaa adiga maxay u noqon waayeen midda kale qafa dhaga qaba oonba sign language garanayn ayaa intuu meel imaada wuxuu kale yaa waxaad sheegaysa amay been yihiin waxaad sheegaysa amay been yihiin war waxaan ku dhahay dadaan la hadlahayaa dadkii aan la communicate garaynahay waa isfahmahaynaa ayaga intay tagaan dhagoolna waa very sensitive haddaad luuqadiisa garanaynin iman muddo isbuuc ka horo xaflad ka jirta Mombasa inay tahay aan jeclahay ayaad qof sign language interpreter ma istaagnaa so wrong interpretation u sameeyay marka dhagoolada dhan waa isku sheegeen status Facebook meel kasta ay ku soo qoreen waxay dhaheen luuqadayna la caynaha ay dhaheen luuqadayna maxaa loo caynaa we need respect inaad dawladda ayna maaragtay protect garaysa qof walbaba oo maaragtay Soomaalida iyo qof walbaba iyo Kenyaanka dhan inayna protect garayaan oo luuqadayna hadday garanaynin ay soo bartaan haddaysan ahayn ay soo baranaynin banaanka ay ka maraan rabnaa ay dhaheen ana haddaan wax garanaynin ama bilsmal qofka interpretaga uu wax garanaynin cunugan dhagoolkaaba sensitive booda social media dhan uu ku soo qoraa meel kasta ku soo qoraa wuxuu leeyahay aniga luuqadayda si xun loo isticmaalayaa mar damba kuma yeerinaya as an interpreter kuma yeerinaya xaflad kuma marta aad joogto ma imaanaya meel aad interpreter ka timi imaanaya marka Soomaalida waxaan la yaabaa war waxaad sheegaysi ama been yihiin war aad ma garanaysidee aad ku ogaatay mid kale maxaa u takooro cunugan marka hooy najmu waxay sheegtay waa run ana qasooyin badan og yahay maalin walaashii najma markay imaadeen wajeer don't hide me markay sameeyeen dad badan way caawisi insha Allah qafa isoo wacay tag maama inay heelo malaynaa qafka wuxuu iga soo wacay tuulo hal salaamu alaykum alaykum salaam maadaama aniga aan ahay Soomaalida ninka Soomaalida oo meesha joogo dhalinyar oo maaragtay dadka bulshada ku dhex jiro amado ay soo wacdo waxay dhaadeen macal salaamu alaykum alaykum salaam waxaan arin xanuun badan ku sheegay haye anigu waxaan haystaa yar naafe naafa miyaha naafanimadiisana waxa baran karaa laakiin cidaan ku xira cida aan ku xira maxad u xiriyaa ku dhac anigu maxad wajeer u keen ways iskuulaha badin maxad u keen ways waxay dhaadeen horta reebaadiyaan ahay oo miyigan ka imaaday xoolo dhaqtaan iska ahay mid kale haddaan banaanka keena wiilku waa liiga caynaa wiil inay ahay oo aan jeclahay liiga caynaa ay dhahday yaa ka cayna bulshadii ayaga caynay war cunugan tabar uma hayse maxaysaan u yeeli cunugan maxasaan cunugiya marka cunugaygan la baxsan lahayd cunuga lagu mashquula maadaama on society ka baxsan waay inaan ku xiro dugay noqotay soo markay maqantay waa xiri magaalka aadi waa iska soo qaraabani maragtay qotiloonkada iska doonani waa u soo qaraafi cuntay u keeni meeshaad ku xirin cunugay meeshaad ku leeyahay iskuul lama geynin maxay maamada educated ma dadkeena 95% dadkeena educated ma education ku markaan macna inuu leeyahay qofkii marka saacadeyn lahay waxa waaye ani camal ama qof kala marka walaasha najmu waxay sheegaysi waa run waa ka dhibaatada badi ee la kala kulmaa caqabada kala kulmaa dadka caruurta baahida gooniga khaasatan gabdhaha maxaa ka mid ah wax ka mid ah gabdhaha horta badi waa loo cabsadaa in la kufsado waxaad arkay dadka Soomaalida oo cajiib waay qafa maaragtay qafba maskaxdiisa ka yaad maartay ku mashquula maama ana waxaan ka warqabaa cunugeeda meel ku xirtay maaha waxay dhahay banaanka dankan ana maadaama aan joogin gabar waay banaanka dankan waa laga farxumayna dad nima nin u tagaa la arkaya imanahan dambe wax cajiib jira marka waxay dhahdaan cunugeyga waxa kale aan ku sameyn karo waxa waay guriga meel ku xirto markaan maqanahay gurigan ku xiraa gabadha marka dadka ay meel banaanka kala communicate gareyni qof communicate gareyna ayadoo meesha ku sii jirto ayba meesha u baxsanayn dhagax lagu soo tuura
ya badi maaragtay weliba ilmahan yaro maaragtay edabta daran dhagax kusoo tur waa joqsaysanayaan cunuga marka waa cunug maskax dhiman marka waa baxa markaad baxa dhinaca la siin karaa waxba maaragtay wax dhanaad maaragtay ama juice loo gadaa then ragga barkii marka ragga qaarkii waa ka maamulanayay sidii rabana yeelayn qisooyin badan oo maqalnay oo gabdha oo maaragtay baahida goonida qabaan oo maaragtay loo geystay maaragtay arrimo aad fulxun waa arrin mar walba aan maqli jirnay soo macallin hadda maxaa kula talin lahayd waalidiinta carruurta baahida goonida qaba maadaama macallin tahay oo maaragtay aad maaragtay aad barto waalidiinta horta waxaan u rajaynayaa qof haya cunug baahida gooni qaba haya horta ma sahlana emotions badan uu qabaa qofkaas therapy u baahan yahay laftankiisa counseling u baahan yahay guiding and counseling in waalidka lagu hagaajiyo oo mar kastaba la garab istaago mooshi ma sahlana cunug baahi qaba hay waxa waaye aniga macallinka laftankeyga ayaaba maaragta culays badan dareemaya qofka dhale ka waran maamooyinka iyo aabiyaalka ilmaha baahida qaba dhaleen waxaan maaragtay baahida goonida qaba dhaleen waxaan u boorinayaa inay ilmaha ciyaalka iskuulaadka ay keenaan cunuga hadday liitahay wax uu baranaa dadka marka wadanka ayaad ka mid noqonaa wax baad doonaa aad ka heli karaa waxyaalo badan cunug waxaan ogey dhagool leh hadda Japan dad aadaya jira Olympic u aaday cunug dabaal u aqaana waa grade 6 grade 7 miya 8 meelaha dabaal u garanaa ilaa Japan u aaday marka wuu soo dabaalan lahaa talentkaas fiiri laakiin haddaad xirtid guriga aad ku xirtid muxuu baranaa cunug badan horta dhagoolaha lama xiro yes laakiin dadka maaragtay autismka iyo maaragtay autistic children kuwaas kuwa la kuwaas baday laakiin hakada soo saarto banaankeenta bulshada kama baxsanayaan waxaa tale horta dawladdu waxaan u boorinayaa inay maaragtay resource badan ay geliyaan ilmahan baahida goonida qaba inay resource badan geliyaan autistic childrenka iyo maaragtay mental handicapka iskuulaad badanaa jira iskuul waxaa jira MH maaragtay wuxuu ku yeelaa Catholic primary ku dhex yeelaa Catholic laftankiisa waxaa ku jira ilmo VI visual impaired way ilma aan dhalaan yaa ku barta dadka reach out to those people dadka ina mar loo taga la maaragtay moral support la siiya waalidka laftinkooda moral support ay u baahan yihiin bulshadan dadka qabtaa bulshadan dadka ka qaban karo waxa waaye waa ani adi inaan wacyi gelino oon dhahna wacyi gelis badan baa un dadkan wax loogu qaban karaa oon dhihi karna walaalayaalow ruuxan waa bini'aadan ilaahayaa abuuray sidiis ilaahay adag ku abuuray qafa mandawaytay dhahay man isli malaha Nairobi la xiriir yaruha wuxuu u dhahay niyow dhagoolan la communicate gareyn war ninkan dhagoolkan naga daawada maxaa ninkan waxaad ilaahay dhagool ugu dhigaa uu qabay u dhahay ay wayta ilaahay ku muwayn fiiri dhagaha laga qaadi karaa indhaha laga qaadi karaa jiisa laga dhigi karaa wax kasta ilaahay ku muwayn daqiiqaday ku tahay ilaahay marka inaad qafkaas caayida adiga ku banaanay marka tolka waxaan leeyahay dadka bulshada inay maaragtay ilmahan ay caawiyaan oy maaragtay gacanta midigta u noqdaan oy hadday arkaan cunug dhibaataysan oo maskaxda si ay ka tahay ay wadada ku dhaafin oy dhahaan gacanta qabtaan at least maaragtay support ay siiyaan moral support ay siiyaan cidahooda ay ku simaan maaragtay ay caawiyaan yaan ka codsanahay bulshada masha Allah carruurta baahida goonida qabo marka iskuulka la taga maadooyinka la baro waa sida caadi xisaabta science-ka kulli gooni loo baraa sida caadi loo baraa sida caadi wax ka duwan ma laha waa un si khibrad oo ku baran kara un baa un lagu baraa mooshi sida ka duwan oo lagu baraa ma laha masha Allah mal aad u maasantahay maartay arrimahan la wadaagtay waa arrin maartay wacyigelinta hadda kulli way bilaabatay anagana insha Allah wixii awoodaan waan wadeena aad u maasantahay bal sign language dadkan dhageysanaya especially community-ga oo maartay dhagahala bal salaan una sheeg macnaha inay dad anaan jecelnahay oo maartay naga bedelneen they are able differently ma fahantay moogi they are not disabled bal nagu salaan waxaa dhahdaa waan jecelnahay xagga ka salaan ayada niida iska jibin de
ما شاء الله. نقول حرب الساينك مهدي شو. مهدي. مهدي شو. ما شاء الله. معلومة هذا ما سنتهي إن شاء الله وتذكر مرتي وقاد متشمع وحبرتنا وسلامنا. Thank you نزوع ما سنت. Thank you. Thank you. Thank you. هذا ما سنتين. شكرا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.